Assalaamu calaykum. Waa caadi, noloshu way weji badan tahay. Waxaan la hadlayo waa rag iyo dumar. Ma waxaa jira qof aan weligiis la kulmin dhaawaca? Ha ahaato qof kaa tegay, ama qof runaantii ku dhaawacay, ama qof adigoon ogeyn hal mar isu kaa bedelay. Runaantii waxaa jiraan waxyaabo badan oo aan rabo inaan maanta kaala hadlo. Inaad dhamaysato muuqaalka waa muhiim. Runaantii markaad tahay qof dhalinyaro ah, gaar ahaan da'da yaraanta, waxba uma arkaysid inaad qof u cawaadid adiga oo doonayo inuusan kaa tegin qofkan. Laakiin maya, sidaas waxba uma jiraan. Markaad weynaato ayaad dareemaysaa shalayto iyo inaad ku sugnayd nolol mugdi ah. Waxaan dabiici ahaan u leenahay markaan qof si dhawaan u jecelnahay inaan u cawaadno, inagoo rabna inaysan inaga tegin. Laakiin kor iyo hoos way tagayaan, waayo qofna laguma qasbi karo meel uusan rabin. Waxaan kuu sheegi doonaa qodobadan. Meel ku qoro, weligaana xasuuso, hadduu wiilkaa tago waa siduu u tagay. Marnabana noloshaada ha ku xirin qof marba aad aragtay inuusan kuu baahnayn. Xoog iyo qasab iyo calacalna waxba ha ku raadin, waayo waxaasoo dhan waxba ma soo kordhinayaan. Halka aad xiriir sheegaysa, adiga ayaba naftaada u wanaagsanayn, waayo qofna lama qasbi karo. Ma daawatay musalsal magaciisa dabcan ma xasuusto, laakiin filimkaas waxaa waday gabar markaa aad u jeclaatay atooraha. Dhaqaale ay lahayd, micnaha taajirada ay ahayd. Isna wuxuu ka shaqaynayay xafiiskeeda uu ka ahaa sawir qaade. Waxa ay qasab iyo xoog iyo maal ku raadinaysay inay hesho isaga, laakiin ugu dambeyntii wuu ka tegayaa, gabar kalena wuu ka guursanayaa. Dabcan hadduu wiil tago ama bilaabo inuu moobilka ugu dhagaysto, ama fariin uusan kuu soo dirayn, amba xitaa uusan ahayn sidii aad ku taqiinay, u jar xiriirka kana danayso. Waayaan sidaas u dhahay, dabcan qof weyn ayaa tahay, waadna dareemi kartaa halkan ka hadlayo. Raggu isku mid maahan, taas waan ogahay, laakiin waxaa jira dhaqano ay isku mid ka wada yihiin. Sidoo kale haddii aad gaabis dareento, isaga har meeshaas. Wax wanaagsan kama soo socdaan. Tan inaad fahamta ayaad u baahan tahay goor kasta aad isku daydo inaad qof qanciso, waa intaad ka sii fogaato qiimahaaga. Sida musalsalkaas oo kale, horey waan kuugu sheegay, haddana waan kuugu celin. Qof bani aadam ah lama qancin karo, xitaa haddii aad maalkaaga, waxa dunida saaran oo dhan xitaa haddii aad siiso. Waa qofkii ku kibra oo ku muujiya isla weyni, kibir, ku tumasho iyo dhaqano aanu lahaan jirin. Noloshu ma dhamaystirna. Sidee markaa qof bani aadam u dhamaystiri kartaa? Hadduu isbedelaba ka danayso, hadduu ku soo dhaweystana waa sida loo baahnaa. Haddii aadan guurka hadda diyaar u ahayn, waxba xiriirkaas ku daahinin, ka danayso. Waa inaad barataa inay jirto waxa loo yaqaan xiise dhac. Ma kugu celinaya, xiise dhac ayaa jira. Waxaan la kulmay qiso yar. Wiil dhalinyaro ah ayaa waxay wada socdeen gabar muddo 4 sano ah, ugu dambeynna way ka tagtay. Isaguna muddo ayuu xanuunsanaa. Ayaan weydiiyey, wuxuu igu yiri, weligay maalin xitaas ma oran qofkan ayaa kaa tegi doona. Maalin xitaa kumaanan fikirin qofkan ayaa isbedeli doona. Waa sidaas oo kale gabdho, idinkuna xiriirka hadduu waqtigiisu dheeraado, macaanka ayaa ka yaraada. Qofna wuu isbedeli karaa oo labadiina idinka mid ah, ilaa ka calafka Ilaahay isugu qoro mooyaane. Ma raba muuqaalka inuu dheeraado. Ragow, sida caadiga ah, gabdhuhu way isbedelaan, raguna la mid maaha iyaga. Oo ma ku dhihi karo haddii aad gabar ka dareento isbedel, ka danayso. Sidaas kuma dhahayo, waayo dumarku waxaa ku xiriira xaalada gaara oo loo baahan yahay inaad fahanto. Waa sax, way isbedeli karaan. Haddii aad aragto gabadha inay rag badani kugu dulwado, ka fogow. Meeshaas ku soo afjar xiriirkeeda. Waxdana ayuusan kaa gelin daba cararkeeda iyo calacalkeeda. Walow dumarku ay naxariis badan yihiin qaarkood, ragguna ay ka duwan yihiin, haddana siday u naxariis badan yihiin ay u hadal macaan yihiin. Intay ku dhoola cadeysa ayay ku qancin kartaa, hoosna arrinkeeda ayay ka wadataa. haddii baad dareemayso, iskaga tag. Waxaad tahay bani aadam, umana qalantid inaad daba cararto qof aanan kuu baahnayn, qof xitaa laga yaabo inuusan warkaa hayn sida ay tahay xaalkaaga. Waxaad dareemaysidna ficilada xun ee ay sameynayaan. Runaantii garo qiimahaaga, hana isku bahdilin meel aysan ka jirin qiimeyn iyo kala dambeyn. Xiriirka caafimaadka qaba waa inaad soo afjartaa oo u bedeshaa xiriir dhab ah. Waad fahmaysaan? Waa inaad guursataa qofkaas, ama gabadha ha ahaato amba wiil ha ahaado. mawduucana maanta waa intaas. Farax iyo Batuul guul ayaan idin rajeynayaa. Waa anigoo Cabdiraxiim Cali. Amaana Allah.